maayirka degmada Burco Maxamed Yuusuf Muraad ayaa maanta xariga ka jaray carwada qadan hoodo boodhari daryeel dumar oo xarun cusub ka furatay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Maayirka ayaa tilmaamay in carwadani ay ka furantahay meelo badan oo kala duwan isla markaana xarunteedu Burco aynu maanta xariga ka jarayno. meelo badan bay ka furtay inantu maadaama laakiin maanta ay degmadii Burcana ka furtay aad iyo aad baan soo dhaweynaa waana u mahadnaqeen ee dalka dibadiisa ka furan tahay dalkay ka furan tahay maanta maadaama degmadii laga furayo waxay noqonaysaa in aan soo dhaweyn gacmo furan baan ku soo dhaweynaa meherada waqti loo baahnaa aad iyo aad loogu baahnaa ayaa la furay waana ku mahadsan tahay waana soo dhaweynaa reer Burcana waxaan leenahay waliba qiimo dhimis reer Burcana waa inanta idin la shaqeynaysaa waxyaabaha dukaanka yaalna sida inoo ballan qaaday qiimo aad u macquul ah oo wanaagsan ayaa wax la inaga iibin doonaa mulkiilaha carwadan marwa qadan hoodo oo iyaduna halkaasi ka hadashay ayaa ka warbixisay qalabka iyo alaabooyinka kala duwan. waxaan idinku baaqayaa inaan idin keenay wixii aad dabada ka doonan jirteen ama se gobolada kale dharkii carruurta haday tahay oo 70% qiimo dhimis aan ku sameeyay kabaha dumarka haday tahay duruucdii haday tahay cadaradii haday tahay kariimadii haday tahay wax walba oo original waxaan u maleynayaa reer Burco inaan koobi dambe iibsan doonin saan ugu talagalay kariimo aan chemical lahayn anigoo ugu talagalay in aan horumarka dalkayga gobolkayga aan Togdheer aan ku faraxsanahay aan joogo una dadaaliysan horumar ugu gaarsiin lahaa gobolada kale. sidoo kale waxa iyaguna furitaanka carwadan cusub ka hadlay xildhibaan oo kamid ah xubnaha golaha deegaanka Burco kuwaas oo dhamaantood soo dhaweeyay furitaanka carwadan cusub. Axmed Dagaale, Home Cable TV, Burco.